dowladda Spain waxay ku hanjabtay inay qaadan doonto go'aan hal dhinac ah ay u aqoonsanayso Falastiin inay tahay dal madax banaan haddii midowga Yurub uusan qaadin tilaabadan. waxayna sheegtay in xabad joojinta ku meel gaarka ah ee Gaza aysan ku filnayn iyadoo ku baaqday xabad joojin joogto ah. arrintan ayaa timid shir jaraa'id oo ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ku qabtay isgoyska Rafah ee xuduudka u dhaxeeya marka Gaza iyo Masar. ra'iisul wasaaraha Spain ayaa sheegay in dalkiisa laga yaabo inuu go'aan ka gaaro aqoonsiga dowladda Falastiiniyiinta haddii midowga Yurub uusan sidaas yeelin. mowqifkan waxaa ka horeeyay hadal uu yiri wasiirka arrimaha dibadda Spain kaas oo uu ku sheegay in Madrid ay taageerto aqoonsiga dowlad Falastiiniyiin ah muddada aadka u yar. marka la eego xabad joojinta ku meel gaarka ah ee marka Gaza, ra'iisul wasaaraha Isbaanishka ayaa sheegay in xabad joojinta hadda aysan ku filnayn loona baahan yahay xabad joojin joogto ah waa in la hirgeliyaa. waxaan dalbanaynaa sii deynta maxaabiis badan iyo xabad joojin joogto ah, waxaa sidaa yiri ra'iisul wasaaraha dalka Spain. subaxnimadii Jimcaha waxaa bilowday xabad joojin 4 maalmood ah oo u dhaxaysa dhaqdhaqaaqa iska caabinta Islaamiga ee Hamas iyo Israa'iil. muddadaas oo ay dhici doonto in qayb maxaabiis ah la isdhaafsado. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa ku warantay in Israa'iil ay Jimcihii u yeertay safiirada dalalka Belgium iyo France si ay uga mudaharaadaan hadalladii madaxda dowladda ee labada dal ay ka jeediyeen marinka Rafah. waxaana si adag u cambaareynaa hadallada ra'iisul wasaaraha Belgium iyo Spain ee ku aadan in Hamas aysan mas'uul ka ahayn dambiyada ay gasho, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. ra'iisul wasaaraha Belgium iyo Spain ayaa shalay oo Khamiis ahayd kula kulmay madaxda Israa'iil ee ku sugan magaalada Qudus ee la haysto iyo madaxweynaha Falastiin Mahmoud Abbas oo ku sugan Ramallah oo ka tirsan daanta galbeed ee iyadana la haysto. horantii labada hogaamiye ee Yurub waxay dhaleeceeyeen gardarada Israa'iil Gaza waxayna dalbadeen xabad joojin degdeg ah oo joogto ah. dhanka kale hogaamiyaha xisbiga bidix ee Isbaanishka ee Podemos ayaa ku dhaleeceysay ra'iisul wasaare Pedro Sanchez iyo midowga Yurub inaysan muujin falcelin ku filan oo ka dhana Israa'iil. Bilara wasiirkii hore ee xuquuqda bulshada ayaa sheegay in iyaga xisbi ahaan ay aad uga walaacsan yihiin booqashada ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez oo ku tagay Qudus, halkaas oo uu kula kulmay shalay isaga iyo ra'iisul wasaaraha Belgium. Bilara waxa uu ku daray war-saxaafadeed uu soo saaray shalay oo Jimco ahayd in booqashadan laga yaabo inay gacan ka geysato in Netanyahu dambiilaha dagaalka lagu sii daayo maxkamad dambiyada caalamiga ah. waxay sidoo kale xaqiijisay in Brussels ay tahay meesha ku habboon in lagu soo rogo cunaqabatayn dhaqaale iyo cunaqabatayn hubka ah oo ka dhan ah Netanyahu iyo kooxdiisa sidii ku dhacday madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin.